dambaysay baa si sharaf leh maanta u soo dhoweeyey ilaa madaxweynaha ilaa ilmaha ugu naqan wasiiradii way ku dhan yihiin meesha safiiradii dhammaan waa lagu dhan yahay fanaaniintii Somaliland sida u dhanaayeen Maryan Mursan sidan iyo si ka badan bay geydaa waana loo samaynayaa dawladuna diyaar bay u tahay haddaad idinku kamaradiitiina wareysiyadu way idiin dambeeyaan inkastoo daalantahay wasiirkii baan ku raajinayaa dalxiiska marka hore Maryan Mursan waxaan leeyahay ku soo dhawow dalkaagii hooyo runtii waxaa marti qaaday oo soo casuumadeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda anigana isaga ayaa ii wakiishay oo yidhi anaa marti qaaday soo dhaweey ummadda reer Somaliland dhammaanteedna way u heelanayd imaatinkeega waad arkayseen sida mataqaanaay looga hortagay waxaan leeyahay Maryam dalkaagii baa timiday ku soo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda reer Somaliland daayir yaala kaahin oo casuumadan ii soo fidiyay iyo wasiirada uu u xil saaray madaxweyne ku xigeenka Axmed Yaasiin Yuusuf iyo intii maartay ii soo qaban qaabisay casuumadatan aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baan waxaan u jeclaa 2002 markaan halkaan imid ayaa dareemkaygu wuxuu ahaa iskuul inaan ka sameeyo xaafadda Daami la yiraahdo Hadraawi iskuul ilaa iyo intii aan idinka maqnaa fikradahaas waa igu jireen ilaahay waxaan ka baryayaana tii fikirdeeda iyo dareemkeeda ilaahay u fuliyo ilaahay inuu iga dhigo maxaa la yiraahaa aniga oo fikrad kale tan wato oo ah fanaaniintii waxay u kala jabeen gobol marka annagu fanaaniinta xabad kaliya aan ahaan jirnay sidaas awgeed fanaaniintii inaan meel iskugu keeno oo gobolaysiga ay ka baxaan waxa weeye Ameerikaanka Hollywood buu leeyahay oo maxaa la yiraahdaa Hindidu Bollywood bay leedahay aniguna Soomaalida waxaan u sameeyay Hollywood waxaan rabaa inaan uga sameeyo berbera agteeda buur ku taala marka waxa weeye ilaahay tii dareemkeeda uu rumeeyo Allah iga dhigo dareenkayga anigu waxaan ka baqay waxaan ka baqay inaan badintaan ka baqay damiirkaygu markuu kacay laakiin reer Somaliland waad soo dhaweyseen laakiin waxa kan anigu aan sheegayo waa wax gacantiina ku samaysateen ninna kama baryaysin intii baan sheegay anigu aan sheegay wax idinku aad samaysateen oo gacantiina ku samaysateen weeye laakiin waxaan idin leeyahay Ilaahay idin saayidsho adduunyada waxa ugu qaalisan waa nabadii waxa weeye waad samaysateen shicibka sameeyay dawladda samaysay idinkoo dhan ba samaystay marka iyadii oo qaali haysataan wax isku kaay keenay maanta meesha tanna waa nabadda samayseen baan isku kaay keentay marka Allah idin saayidsho marka nin kasta oo nabad samaysta dadka Soomaaliga ku hadla meel kasta joogeen nin walba oo nabad sameeyana intaanu tagno yaan iskuulana ka dhisayna qasriyana ka dhisayna ma sha Allah markii aan soo socday orod baan ku soo baxay waxbana maxaa la yiraahdaa ma aan ka soo gaarsin laakiin habeen hore mar aan sii seexanayay ayaa intaan yarta qalbigayga ku soo dhacday anigoo aan u qoray xataa aan garanaynin marka waxaan Hargeysadaydi wacnayday dadka jooga halkaan nabadda tii horseeday hormuudkii ummaddu ay ku soo hiranaysay hambalyooyin yaa wanaagsan iyo hilowba maanta ay keenay hagaag weeye dhankayga reer Hargeysa soo nabad maaha